فرج عليه وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم بإذن الله يا مرلبات سمال محمد قادين سلام يا ميل والبأجوكتان أولا شنا مع نورة شنول ما أنت أرن يرى قصة يربان هي عجيبة أو يعني قبله كل كعي أرن كان أيهين قبل رجع قبري الشيء naag raga ma maqli jirta naag rag u dhiganta ay yihiin gabdhaha wallaahi xarash baa u hayaa arrintana maxay ahayd waayaale waxaa maqlay nimanka ha islaaliyaan feejignaada ayaantan gabdhuhu way idin dhaarteen because goroobnimo waxay maraysaa cirka goroobnimo walaafeen goroobadii baa waxay marayaan 80% boqolkiiba 20 baa guryo leh oo la qabo xaasas ah tii yareed hadda soo kacaysa maaha waa gabdhii garaabadan sheegaya maasha allah alla ilaahay masaakiinta u naxariista wallaahi way rafaajin ilaa u gargaaro waa u baryayaa nabigana wuu u duceeyey horeyba ugu duceeyey markan gabdhaha waxaa idin leeyahay haddaad mar garoob noqotay oo lagu furay ilaa nin baa shalay ku furay kii shalay ku furay kan kama duwana dambe ha u fududaynin guurkaaga ha u fududaynin maaragtay hawlahaaga guud ha u furin albaabkaaga nin kale haddiiba mar lagu furo ani wallaahi waasaan qabaani haddii mar la i furo maba soo dhaweysteen macnaha aniga anoo ninkii rabo ilmahaygii gurigaygii dhaqanee iga dhaqaaqo maba soo dhaweysteen nin kale maba soo dhaweysteen because waa sam nin soomaali nin kale waxba kama duwano laakiin adi haddaad iskaaga uga tagtay midkii hore ama midka ku furay aad kala tagteen adiga iskaaga uga dhaqaaqday hama markaas adaa ikhtiyaarkaaga uga tegay because adigaa dalbaday adaa damcay adaa ka tegay laakiin mid haddii aadoo reerkaagii iyo ilmahaagii iyo gurigaagii dhaqanaya oo muxuu ahaa weliba ilma haysta yaryar u baahan aabiyo hooyo garab istaaga kaaga dhaqaaqa meesha walaale macaaley ku kale ha soo dhaweysanin nin soomaalina abaal ma laha wallaahi run baa fiican nin soomaali ah abaal ma laha wuxuu ku leeyahay naa shalayba waxa lagaaga dhaqaaqaad qabtaaye oray dhaaf intaad guurso le nin soomaali ajnabi guurso haba ku dayacee macnaha haba ku dhiba muxuu ahaa haba ku dhiba dhaqaalaha kulle ajnabiga xagga dhaqaalaha kuma fiicna waan ogahay laakiin weligii kaama tegaya kaas kuma furayo ku fura oo muxuu ahaa haddana banaankiina kuu istaagaya oo kaa hareynin ku maaragtay aan ku dhibin oo ku xushmeeya ku qadariya lacagiiba ku siininba soo kama qiimo badno walaalay macaane oo muxuu ahaa garanaya ixtiraamkaaga garanaya xushmadaada garanaya muxuu ahaa haweennimadaada garanaya oo ka dambeeya oo kugu qaylinin oo ku xushmeynin oo gurigii ka maqnayn oo muxuu ahaa shaqadiisii gurigiisa keliya ku qadarinaya kaasa kale yaa heli karaa waxba iyo isiininba weligiyaalihii marka ugu yartahayna waxaa laga yaabaa inuuba guri kuu qaado aa marka ugu yartahay nin soomaalina guri kuma qaadayo weligii hal baa guri kuu qaaday halkaana wuu kugu dhibo dhuunta kuu gelay guriga maxaa jabiy miyaa imaada yaa la keenay control 24 hour wuu ku controli marka anu waxaan ku oran lahaa gabaray haddii mar lagu furay ha ku degdeg nin kale oo aad weliba hooyo tahay ilmo leedahay sheekada yaab kale ee maanta socda waxay tahay haweenka soomaaliyeed way xanaaq ma tiraahdaa way xanaaqeen because qudbasira lagu guursanayaa qudbasira markii lagu guursado dhowr bilood ama hal sano la qabo waa la furayaa ama dhowr sano ta ugu badan 4 sano la qabaa waa la furi ta ugu rameeya waa laga dhaqaaqayaa maxaad ku fali qudbasira walaalay macaana adu ilaahay kaa dhiga gabadha noocaas ah quruxda badan leh ee saawiq maxaa qudbasira ku fali midda kalena nin naag qaba maxaa ku geenaya adi labaad ogtahay dhaqaalihiisa kama badna hal guri kama badnee mana dhaqaaleyn karo laba xaas wadamadaanaan ku noolnahay runtaa fiican in laysku sheego
because cimiladan ku noolna iyo wadanka iyo muxuu ahaa ciriirigiisa labaxaas laguma beeli karo. inaad adiga isbiisho lama sheegin, oo adiga aad heed waxaaga baxsato dowladaada ku ekaato ma sheegin. taas haween way jiraan sameeyaa. marka walaalayaalow, gabdhaha ayaa la hadlayaa, mar walba dumarkaana hadlaa. marka abaaye macaana waxaan ku leeyahay, ama gabaray, intaad nin ku degdegi lahayd kale waqti qaado, bal naso. maalin dhowt waxaan maqlayay gabar dhowr nin isku marmarto oo nimankiina wada fureen, oo ilmihii xataa lagu dayacay, ilmihiina laga qaatay. ilmo kala aaba ah ilaahay aan kugu dhaariyay wadankan lama korin karo. Africa is normal, waa caadi, waxba maaha. laakiin wadamadan ilmo kala aaba amaba korin kartid, oo 3 aaba 4 aaba kala dhaleen. 2 aaba waxba maaha, 2 nin, because carabkaagi baa dhamaada kii hore, kan dambana ku fara adeeg. mida kalena waxaa la yaabay hadduu ninka marka yimaaday Africa uu ku yiri ani xaas baan leeyahay Africa ii joogta, ha u dhawaan walaal macaana, wanday ilmihiisii reerkiisii uu keensanayaa. wuxuu kuugu falaya malahan. intuu joogana waa intuu qabowga ma aragtay isakaa cilniyo, oo qaboobaha lagu jiro macnaha wuu kugu dhaxan ceshinayaa. mar alla markay reerkiisi u yimaadaana wuu kaa tegi. nin haddii mar Africa naag u joogto walaalay ka fogow oo ka feejignow. haddii wadanka naag u joogta oo naag furay u joogtana wadanka kula joogtana ha u dhawaanan. waxaa hubaal ah ama sanad ha kasoo wareegta, ama 2 sano, ama bilo, inuu naagtiisa kale u xiisayo uu ku laabanayo iyo ciyaalkiisii. adduunka waxaad ogaataa wixii hore iyo waxa dambe, waxay horaan la iloobin. waxa dambe waa iska caadi, waa la iloobi karaa. hataa xitaa ilmo u dhasha adiga waxa weeye ilmihiisii hore ayaa uga qiimo badan ilmaha dambe, because ilmihii hore dhibkii wuxuu usoo maray buu garanayaa. laakiin ilmahan dambe si dhib yara ku dhalay, oo xeelad yar, oo farsamaysan, oo muxuu ahaa isagoo degan. laakiin ilmihiisii u horeeyo dhibaato badan buu usoo maray. marna dhaqaalaha ciriiri ku ahaa, mar nolosha ciriiri ku ahaa, mar muxuu ahaa naagtiisa jaceylku u qaba ayuu u maray darteed. waxaas dhan ayaa ma aragtay ayuu dib usoo xasuusanayaa. marka adiga waxaa taa malahan minyaro adduunka bal oga minyaro waxay taa malahan. waxaana idin leeyahay gabdho, ka fiirsada waxa aad sameynaysaan. mida labaad, nimankan ha layska qabto. idinkaa wax walba u fududeynayo, wallaahi bilaahi idinkaa u fududeynayo. maanta haddii nimanka meel layska saari lahaa, nin gabar bahdila, gabar fura, gabar ku ciyaara lama arkeen. adiga naftirkaaga ee qudbasiraha uu kugu guursanayo ayaaba heedha bahdil kugu filanba, because waa qudbasira lagugu guursanayaa, because qiimo ma lihid. waxaad ka taa agtiisa mataqaanaa jiir baad ka tahay, ama dooli, cid basha u taqaano. marka walaala macaaney, degdega iyo fudeydka iska dhaaf. anigu waxaa la ii qaataa inaan gabarnimadeyda haddii aan waaye ilmo aan dhalay, ilmihii la igu dayaco, inaan ilmahayga iska haysto, because nin Soomaali qiimo ma lehe. ninkaagii hore waxaad u tahay gabar yar, laakiin nin kale hadduu marka guursada waxa weeye waxaad u tahay cajuuso. taadii hore inaad haysataa lagu qaata ama ku laabatid. haddayna kuu suuroobeynina ilaaha iska tala saaro, gurigaaga ilmaaga ku ekoo. ana saas baan ku dhihi lahaa. intaas baan uga baxayaa, aan ku dheeraaday. muxuu ahaa walaalayaal, waxaa idin leeyahay ilaa 10 daqiiqo camal baan ku jiraa. videoga intaasan ku ekaysiinaya insha allahu tacaala. kulan dambe iyo arag dambe insha allah. wassalaamu calaykum.